شيء هاي أقونتيو كددانا وحفرشنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان بداوة ديال كسو دواده مركله إيو برنامج كيني عدك صوماليات. إن برنامج كان وحا هذه قربة إقلا قيب قاطة لنيراد الصوماليات أقوين يهانين تأه una shaqeeya lana shaqeeya dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku sugan wadankan Ingiriiska waxa barnaamijka igala qayb qaata Maxamed Aadan Zakariye iyo Ibrahim iyo Abuukar Cawaale oo caawa asagana inaga maqan dhamaantiinba waxaan leenahay ku soo dhawaada mar kale barnaamijkeena caawa wuxuu ku saabsan yahay crime-ka ama dambiyada ay falalka dambiyada ay dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka sameeyaan wadankan aan ku sugannahay Ingiriiska iyo waxyaalaha kale ee maaragtay ku saabsan sida sharciyada stop and search ka mise booliiska mise habdhaqanka Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed sida ay u dhaqmaan wadankan Ingiriiska waxaan leeyahay dhamaantiinba ku soo dhawaada Zakariye iyo Maxamed Ibrahim bal aan u gudbo Maxamed mise Zakariye marka ugu horeyso waxaad noo soo diyaarisay research year oo ku saabsan dhalinyarada Soomaaliyeed iyo sida ay maaragtay wadankan ku yihiin ama dambiyada ay u galaan. bismillaahir rahmaanir rahiim. Nabiil iyo bahda University TV waan mahadnaqayaa. cilmi baaristan runtii waxa ma hayno kaliya Soomaalida laakiin waxa ay ka hadlaysay dambiyadii 2009kii sanadkii tagay iyo sanadkan oo runtii Soomaalidu ay qayb weyn ka qaadatay midalan dhalinyarada Soomaaliyeed dambiyadii dilalka ama dhaca ama xatooyada sida warbixintan ku xusan waxa hoos u dhac ku yimid dambiyadii la gali jiray dhalinyaradu gali jireen sababta ay u yaraatay dambiyadana waxa ay yani warbixintan ama cilmi baaristan ay sheegaysaa in ay ugu horeyso horta marka ugu horeyso stop and search ka waxaad ku tilmaamto qofka la istaajiyo la baarto dawladda Ingiriiska xogaa arintaas waa ku khilaaf weyn baa ka taagnaa markii la sharciyay ama la baas gareeyay sharcigan sababaha qolyaha ku andacoonaya leeyihiin guul weyn weeyaan wax kamid ah waaxda amniga oo kale Metropolitan Police-ka oo ay leeyihiin boqolkiiba 60 runtii dib ayay u dhigtay crime-kii la gali lahaa maadaama la baaro dadkii oo had iyo joor xidh qaadashada ama xirashada tooriyada iyo midii waxyaabaha la mid ah laakiin dhinaca kale waxa jira dad badan oo iyagu academics ama siyaasiyiin TV-ga Universal meesha ka furan Walton MB-ga ka soo gal xaafad ahaan Keith Nicholson wuxuu qabaa in arintan ay tahay khalad marka runtii dambiyada hadda waxaad moodaa anaga Soomaali ahaan xataa wayna saameysay laakiin hadda waxaad moodaa dilalkii faraha badnaa ee soo noqnoqonaya sanadkii tagay inay aad u yartahay taasoo aan ku ammaanayo ururo badan oo Soomaaliya ka qayb qaatay aan u soo noqono Zakariya iyo Maxamed Ibrahim fikradooda qaaska ah sida la socodsaanba waxaa jira documentary horey uu sameeyay Raaga Cumar oo magaciisa la yiraahdo Lost Boys documentary-gaasi oo ku saabsaneed dhalinyarada Soomaaliyeed ee lagu dilay qaarkood ama isku dilay wadankan Ingiriiska marka waxaan ka codsanayaa Jibriil oo ah farsamayaqaanka televisionka Universal bal inuu idin soo daayo clipkan documentary-ga ah ee uu Raaga Cumar ku sameeyay kuna saabsan dhalinyarada Soomaaliyeed ee qaarkood maaragtay isku dilay wadankan Ingiriiska qaasatan magaaladooda London ayagoo isku dagaalaya gangs waxa loo yaqaano mise xaafad mise kooxo kala duwan ayagoo isku dilay bal aan Jibriil ka codsaday inuu clipkan idin tuso. A father is doing the most terrible thing a parent can do. He's burying his son. لا إله إلا الله لا إله تعالى لا إله إلا الله Give me your shoulder brother put your shoulder underneath لا إله إلا الله follow me please لا إله إلا الله الله slow behind the hand push please brother okay that's okay leave it with me jazakallah khair that's okay In Camden, it was a mother who had to endure the pain of burying her son. Local student Mahir Osman was setting off for home when he was murdered in January 2006. Mahir Osman was only a day away from turning 19 and he was standing at this bus stop just behind me. A gang of Somali boys had come to this area out to avenge an attack on one of their own, and they wanted to get their hands on any Somali boy. And they found Mahir and they attacked him with a viciousness that was just horrific.
How many more they died? Every day they died, I tell you. Every day. Because they very dangerous, I tell you. Maher's mother, Asha, lives in a part of Camden which has seen a marked rise in Somali gang violence in recent years. Asha, what happened to Maher on the night that he was killed? He's walking around the bus stop. 10 o'clock, he want to go home. And they saw the Somali boys. 40 of them, they attacked one boy. Why do you think 40 Somali boys with arms would be randomly looking for another Somali boy? Imagine. What's led to that kind of situation? I don't know. The man witness, an Englishman, he said, I never saw that violence, that people. And still they kick him, and he's coming and he's holding him until ambulance coming. He say, I can't do nothing because too much pain. They haven't got Somali culture, they haven't got English culture. They don't know what they're doing. Really, they don't know. They lost the generation. Asha, can you describe what kind of boy Maher was? A caring boy, kind. I love him very much. Woolwich has also seen a rise in Somali gang violence. One evening in this part of Woolwich, some Somali boys were on their way to meet other young kids who were going to a wedding. But it ended in tragedy, and one of the boys never made it. He was shot and killed, and he was murdered by another Somali boy. The victim was 20-year-old student Abdullah Jama, and I've been invited to attend his funeral. Abdullah was killed in June 2007, but his body has only just been released for burial. This is Musa Chama, Abdullah's father. Abdullah was a well-known and very popular young man. His murder has sent shockwaves throughout the Somali community of Woolwich. Somalis turned out for his funeral in unprecedented numbers. Talking with mourners here, I repeatedly heard people ask, how could this happen within our community? It was like a taboo had been broken. There was a feeling of shame at how our social fabric was breaking down. kaasi wuxuu ahaa Raaga Cumar iyo barnaamijkiisa ka baxa Al Jazeera ee lagu magacaabo Witness. barnaamijkaas ama documentarygaas uu ka hadlayay wuxuu ahaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee qaarkood isku dilay magaalada London ama wadankan Ingiriiska. sidaad u arkayseenna waxay tilmaamayeen hooyooyinkii Soomaaliyeed ee la wareysanayay iyo abayaashii qaarkoodba inay maata arin cajaa'ib tahay dhalinyaro Soomaaliyeed kale dilayso kuwaasoo isku dagaalayo kooxo iyo xaafadaha kala duwan ay ku sugan yihiin. waa arin lala yaabo ayadoo lala socdo arinta Soomaaliya iyo wadanka Soomaaliya maanta sida ay xaaladeedu marayso ayaa waxa la filayay inay dhalinyarada Soomaaliyeed noqdaan dad aad isugu xiran oo walaalo ah oo maaragtay isu soo dhaweeya isuna taageera si kale laakiin inay isku dilaan magaaladan waa arin cajaa'ib ah.